السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaad daawadayaal qisadeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa nebi aadan hore qisadiisa u maqal. waa qisadii nebigii la oran jiray xisqiil calayhi salaam. xisqiil ma nebi ayuu ahaa? qur'aanka ayaa qisadiisa lagu sheegay. ugu dambayn maxay ahayd mucjisadii uu ilaahay siiyey? su'aalaha iyo kuwo kaleba waxaynu ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa hadduu ilaahay yidhaahdo. waase daawade intaynu muuqaalka u gadagelin kommentiga noogu soo qor qisada aad jeclaan lahayd inaynu ka hadalno muuqaalka xiga. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheergaray. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. nebi muuse calayhi salaam markuu dhintay waxaa ku xigay oo maamulaya reer bani israa'iil yuushac ibnu nuun. waxaana yuushac ibnu nuun ku xigay kaalib ibnu yuufanna. markuu dhintay kaalib, ilaahay wuxuu u soo diray reer bani israa'iil nebi la odhan jiray xisqiil. waxaa laga wariyey ibnu isxaaq inuu yidhi cudur dilaa ah ayaa wuxuu ka dillaacay magaaladii ay deganaayeen nebi xisqiil qoomkiisa. waxaana la sheegaa cudurkaasi inuu ahaa daacuun. dad aad u badan ayaa waxay go'aansadeen inay iskaga cararaan magaalada uu ka dillaacay cudurka daacuunka ah si ay u badbaadaan aysan u dhiman. waxayna dadkaasi u carareen xagga iyo saxaraha. hase ahaatee iyagoo meel dhexe maraya ayuu ilaahay dhammaantooda nafta ka qaaday oo way wada dhinteen. sanooyin badan markii laga soo wareegay dhimashadooda waxaa soo maray nebi xisqiil calayhi salaam. wuxuuna arkay dad aad iyo aad u badan oo hal meel meydkooda yaallo. ilaahay wuxuu u waxyooday nebi xisqiil calayhi salaam oo wuxuu ku yidhi, ma doonaysaa inaynu kuu soo noolayno dhammaantooda? wuxuu yidhi xisqiil calayhi salaam, haa, u yeer dadkan waa hore dhintay oo waxaad ku soo noolaysaa amarka ilaahay. wuxuu yidhi nebi xisqiil, noolaada oo waxaad ku noolaataan amarka ilaahay. wuxuuna nebi xisqiil indhihiisa ku arkay awoodda ilaahay iyo sida uu wax u nooleeyo. waxaana la sheegaa dadkaasi inay gaarayeen 4,000 oo qof. waxayna ku laabteen reerahoodii iyo qoomkoodii. halkaasina waxaa ku dhammaatay qisadii nebi xisqiil calayhi salaam. wuxuuna ilaahay qisadaasi ku tilmaamay suuratulbaqara aayadda 243. allaahu aclam. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.